kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta daafaha dunida ka joogtaan halkani waa aragti media uga barateen inaan idiin soo tubino wararka ugu dambeeyay iyo kuwa ugu xiisaha badan caalamka iyo dunida inteeda kale. haddaba warbixinteenan caawa waxaynu ku eegi doonaa maxaa kasoo kordhay Soomaalida dalka Mareykanka gaar ahaan Minnesota lagu haystay laguna soo eedeeyay inay dhaceen lacag gaadhaysa $250 milyan oo dollarka Mareykanka. warbixinta ayaanu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay kasoo kordhay arrintaasi. kusoo dhawaada haatana warbixinteena oo faahfaahsan. waxaa maalinta kasii dambeysay sii kordhaysa tirada Soomaalida loo taxaabaya xabsiyada dalkaasi Mareykanka kuwaas oo lagu eedeeyay inay lunsadeen lacag malaayiin dollar ah oo loogu talagalay in lagu quudiyo caruurta danyarta intuu socday xanuunkii safmarka ahaa ku nool Minnesota ee dalka Mareykanka. qiimaha lacagta la lunsaday ayaa lagu sheegay $250 milyan oo dollarka Mareykanka waxaana kiiskan baadhaya oo gacanta ku haya hay'adda FBI-da ee dalkaasi. waxaana tani intii kiiskan soo shaac-baxay xabsiyada dalkaasi Mareykanka buuxdhaafiyay Soomaali aad u tiro badan halka kuwa kalena lagu daba jiro. wararka ayaa sheegay in qaar kamid ah dadka lagu toonsan yahay kiiskani qaar kamid ah inay baxsadeen oo ay ka carareen dalka Mareykanka halka sidoo kalena Soomaali tiro badan oo gaadhaysa 55 qof oo lagu hayo xabsiyada dalkaasi kuwaas oo maxkamad sugayaal ah. tani intii ay soo shaac-baxday arrinta ayaa waxaa jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka la soo diristay xaalad cabsi ah oo qof kasta oo Soomaali ah oo arrimahan ku lug lahaa ama kiiskani uu soo geli karo ayaa iskaga cararay dalka Mareykanka. haddaba Jamiilo Gurxan oo ka faallota arrimaha Mareykanka siyaasadda iyo weliba arrimaha bulshada ayaa VOA uga warantay kiiskan iyadoona sheegtay inuu saameyn weyn ku yeelan karo Soomaalida. waxayna sheegtay in lala wareegi karo masaajida waaweyn. sababta ugu weyn ay saameyn karto Soomaalida ayaa ah in lacagaha qaar lagu isticmaalay ciwaanada masaajidka oo kale. marka haddii ay ku cadaato arrintani in masaajidadaasi ciwaankaasi lahaa isla markaana goobtaasi lala wareegi karo haddii ay dowladda cadeymana keento waxay sababi kartaa in lala wareego oo la xaraasho dhammaan masaajidada iyo weliba goobaha ku shuqula kiiskani ayay dhahday Jamiilo Gurxan oo u waramaysay warbaahinta VOA. sidoo kale Jamiilo ayaa ku dheeraatay arrimahan dhibaatooyinka ay u keeni karto Soomaalida. waa tan haddaba Jamiilo oo u waramaysay idaacadda VOA ee nala dhageyso. waxa maalinta ka dambaysa sii kordhaysa tirada dadka Soomaalida ah ee lagu soo eedeynayo amaba ku soo biiraya liiska dadka lagu eedeeyay musuqmaasuqa lacag malaayiin dollar ah oo loogu talagalay in lagu quudiyo caruurta danyarta ah ee ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. qiimaha lacagta la lunsaday ayaa lagu sheegay $250 milyan oo dollar. hay'adda FBI-da Mareykanka ayaa arrintan baadhaysa waxaana xabsiga la dhigay Soomaali tiro badan kuwa kalena waxa la sheegay in lagu daba joogo. haddaba sida lacag inta leeg loo musuqmaasuqay ilaa hadda tirada Soomaalida la soo eedeeyay intay leeg tahay suurtagal ma tahay in tirada ay intaasi ka sii korodho. arrimahaasi waxaana la falanqeynaysaa oo khadka Skype-ka ku jirta Jamiilo Gurxan oo arrimaha Mareykanka ka faalloota oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Jamiila ku soo dhawow qubanaha VOA. waa mahadsantahay Sahra ma dhawahay. Jamiila sidaynu wararka ku haynaba maalmahan ugu dambeeyay waxa soo kordhaya wararka sheegaya in Soomaali tiro badan ay u xiran yihiin lacaga la lunsaday oo laga musuqmaasuqay dawladda Mareykanka. bal arrimahan nooga waran. lacaguhu waa lacagaha loogu talagalay sida hore u magacaabay dadka saboolka ama sida Mareykanka looga yaqaan low income-ka waxaana loogu talagalay in la siiyo xilliga iskuuladu ay xiran yihiin oo aysan ilmuhu cunto ka cuni karin iskuulka ayaa loogu talagalay. waxaana bixiya laba hay-adood midna samarka besa la keenaa midna waxaa la keenaa sanadkoo dhammaystiran. markii uu COVID bilowday ayaa shuruudii ugu adkeed laga qaaday taasoo ahayd in danyarta keliya la siiyo sababtoo ah COVID bilowday meelo badan ayaa la xiray. markii la xiray shuruudii ugu weyneed oo ahayd dadka danyarta keliya la siin karaa baa laga qaaday. marka waxay noqotay in meel walba la geyn karo barnaamijkaas. waan gartay marka meelihii la geeyay kasakow barnaamijka samarka iyo xilliga iskuuladu xiran yihiin iyo iskuuladu markay furan yihiin la siin jiray. waxa dhacay 2020kii dunida oo dhan waxa kala xiray coronavirus
marka sidee dadkan imika la eedeynayo iyo lacagtan iyo raashinkan ay dawladda Mareykanka ugu tala gashay dadka saboolka inay ku qoodiso si isku soo gaareen waxay isku soo gaareen January 2020 ayay war-saxaafadeed wasaaradda waxbarashada ee gobolka Minnesota soo saartay markaas waxay u diyaar garoobayeen in samarkii uu soo socdo waa intaan covid magacadiyada dhan uusan xirin marka waxay dhaheen dad waxaan rabnaa mas'uul ka noqdo ama sponsor u noqdo non profit ka markaas ayaa waxa meesha soo galay company la yiraahdo Feeding Our Future then kabacdi March 2020 waxa dhacay adduunyadii oo dhan ayaa la xiray shuruudii ayaa meesha laga qaaday marka Feeding Our Future waxay sameynaysaa anigoo company leh oo non profit leh ama meel in ilmaha ku quudiya ayaan waxaan leeyahay intaanu cunug ayaan cunto siiyay waraaqo ayaan soo gudbisanayaa Feeding Our Future companygaas ayaa muxuu waraaqaha iga qaaday ayagana waxay u sii gudbinayaan wasaaradda waxbarashada ee gobolka Minnesota kuwaas oo u sii gudbinaya dawladda federaalka ah saas ayay isku soo gaareen waa gartay dadka ilaa hadda xirani waa intee liiskase ma laga yaabaa inuu intaasi ka sii bato dadka hadda la xaqiijiyay oo la soo qabtay waxay sii marayaan 49 ay marayaan markii ugu dambeysay liiskuna inuu aad uga badan doono ayay u badan tahay oo dadka hadda waxa la qabtay dadkii madaxda ka ahaa ama horjooga ka ahaa oo xukumay lacagaha ugu badan marka dawladdu waqti badan ayay gelin doontaa inay ku soo cadeyso dad kaleeto inta cadeemihii ugu horeysay ahayd ayay hadda xirtay inay badanteen u badan tahay waan gartay Jamila marka dadkan xiran dhammaantood 49 qof maxabsigay ku wada jiraan mise waxa la sii daayay qaar kamida oo haatan banaanka jooga damiin ayaa lagu soo daayay federal government-ga waxay leedahay way ka duwan tahay xabsiyada magaalada gobolka oo kale marka qofka waa dadka badankiisa waa la damiino qaaday waa la soo daayay baasaboorradii ay ku safri lahaayeen waa laga qaaday oo shuruudo ah tagina waan gartay marka dadkan dawladda Mareykanka waxay ognay 250 milyan oo dollar waa lacag badan haddana dadkan raadintooda iyo soo qabashadooda iyo hawl kale waxa sii baxaya lacag intaasi ka badan maxaad sileedahay dawladda Mareykanka way ka faa'iidi kartaa mar haddii lacagihii baxeen oo la musuqmaasuqay dadkan haatan la daba joogo waxay ka faa'iidi kartaa xoolo lacagtii ma soo noqonayso mar walba waxa soo laabanaysa in la xaraasho hantida lacagtaas lagu bixiyay oo kaleeto guryihii lagu gatay baabuurtii waxaas marka inay dambigii soo ogto dawladda ay ku cadeyso dadka ay hantida soo celiso wixii ka soo celin karaan intay rabtaba ha ahaatee saad sheegtayna lacag aad u fara badan iyo waqti ayaa ka geli doona dawladda waan gartay marka lacagta qayb waxay gashay hanti maguurta ah oo dib hadii loo gado dib looga soo saari karo lacagtii laakiin waxa jira qaybo galay safaro sida la sheegayo iyo waxyaabo imika baabaayo aan waxba laga soo saari karin bal kuwa ka waran sidee dadkan looga soo magdhabi karaa ama lagu xallin karaa hadii keyskan oo kale hore Mareykanka uga dhacay lacagtan mar walba la xaday kulligeed marna ma soo wada noqonayso sababtoo ah lacag aad u fara badan saad magacaad sheegtayba way baxeen oo waxay ku baxeen safar iyo waxaas marka dawladda hadda waxay joogtaa daba qabo oo intii aad heli kartid soo celi dadkaana marka lacaga ganaaxa in la saaray u badan tahay qaarkood inta badanna waxay u badan tahay in xabsi loo wada diro dawladda marka maadaama ay lacagtii xadeen qaybtaysa soo celin karin dadka badankiis inay xabsi u dirto wixii hantida maguuraankaana ay soo ceshato waan gartay dad badan baa ka maqan dalka Mareykanka sida la sheegay oo dibadda uga baxay kuwa iyaga maxaa laga yeelayaa masaasay ku samata baxeen baa la oran karaa mise dawladda Mareykanka iyadoo adeegsanaysa hay'adaha caalamiga ee booliska ayay soo qaban kartaa qolyahaasi ama dadka meesha ka baxay meesha joogaan ay ku xiran tahay sida ogahay hadda 3 qof ayaa maqan oo horjoogayaal ka ahaa wadamada ay joogaan ay ku kala xiran tahay hadii wadanka Mareykanka xiriir ka dhaxeeyo booliskooda shaqo ay ka wada dhaxayso ay joogaan in booliskaas la isticmaalo oo ay soo celiyaan ayaa laga yaabaa laakiin haday meel kale wadamo kale ay joogaan inaan la soo celinin oo saas ay ku baxsadeen ama siyaabo kala duwan ee dawladdu shaqaysaa laakiin kamaysan hadlin sidee ka yeeli doonaan Jamila gabagabada hadaynu ku dhawaano dadku ma wada Soomaaliba mise dad kale oo jinsiyada kale laba ku jira mid kale sidee u saameyn kartaa dadka muslimiinta iyo dadka Soomaalida ah ee gobolka degan iyo guud ahaanba dalka Mareykanka ku nool
Soomaali waxaan ahayn waxa kaga jira haweeneyda waday oo waxa dhan xukumaysay oo company-gan Feeding Our Future horjoogo ka ahayd waa haweeney cadaana oo Amy la yiraahdo waxa kale ku jira gabar ayadana airport-ka laga soo celiyay oo Roma labadaas ayaa ku jira Soomaali ahayn inta hadda ogahay laakiin dadka badankiisu waa Soomaali dadka waxay u saameyn kartaa oo kale ummadda Soomaaliyeed lacagihii waxa meelaha qaar waxa la isticmaalay ciwaanada masaajidda oo kale waxa la yiri masaajidkan intaan cunto ku bixinaa ayagoo magacyadu been abuur ay ahaayeen marka hadii masaajidkaas oo kale ay ku soo baxday dawladdu soo cadeyso meel ciwaan kasta oo ku shuqul leh dambigan dambiso oogistaan meelaha la xaraashi doono ayuu gali doonaa hadii alla idmo marka waxa markii la xaraasho masaajid la'aan uma kala eegayaan marka saameynta intaas leeg ayaa Soomaalida ka soo gaaraysa mid kala diirad gaar ayaa loo yeelanayaa oo dadkii barito wax toos qaban lahaa dadkan ayaa waxay abuureen caqabado aad u fara badan oo markii hore oolin dadkan aad iyo aad bay u mahadsan tahay Jamiila Gurxan oo arrimaha Mareykanka ka faalloota oo iyadoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka khadka Skype-ka noogu warramaysa Jamiila aad baad u mahadsan tahay Sahra sidoo kale